بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير، الحمد لله وفي عنهاي maalintii labaad ee bishii Ramadaan ayaan joognaa. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يصلح نيتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu watacaala. maalintii Ramadaan ee labaad baynu joognaa. waa sidaa ilaahay u tilmaamay ayaaman macduudaat, waa maalmo tirsan, 1 2 3 4 la leeyahy. durtaba maalin baa tagtay, tii labaad baynu iminka ku jirnaa. marka waxaan rabaa haddii alla idmo axkaamta soomka si yaroo kooban inaan insha allahu tacaala wax uga taabto. waa cibaado sanadkii mar soo gasha. cibaadadu markay joogto tahay oo maalin kasta lagaa rabo ama habeen kasta lagaa rabo oo ilaahay kaa rabo subxaanahu watacaala, iyo way kala duwan tahay markay sanadkii mar ay kuu soo gelayso. sanadka markay mar kuu soo gelayso waxay u baahan tahay aqoonteeday u baahan tahay, dadaalkeedii ogaalkeeday u baahan tahay. waxay u baahan tahay baraarujinteeda, in dadka lagu baraarujiyo, in la akhriyo, in axkaamta soonka la dhegaysto, in la isweydiiyo. dadka culimada ah qofku wuxuu ku aqoon dhaamo u weydiiyo, in culimadu bulshada iyo ummadda xil iska saarto si cibaadadoodu u wanaagsanaato, oo wixii ka xumayn karaya ay ugu baraarugaan oo isaga ilaaliyaan. ducaadda iyo culimadu xilkaasi waa saaran yihiin, meelay joogaanba ummadda inay u faa'iideeyaan. habeen iyo maalinba bisha Ramadaan qofka muslimkaanu aada ugu dadaalo cibaadadatan sida ilaahay uu rabo oo rasuulku inoo sharciyey calayhi salaatu wassalaam, in qofku cibaadadan ula yimaado. alxamdu lilah haddaad maanta nooshahay oo Ramadaantan aad joogto oo soo gaadhay. imise qof oo muslimiin oo walaalaha ah, kuwa aad taqaano iyo kuwaadan aqoonba, bal isweydii, qofka muslimka ahow baa Ramadaantii hore kula soomay oo dunida daafaheeda iyo dacalladeeda meel ka joogay, oo maanta aan qof ka noolayn. intii aad garanaysay adigu ee dhimatay, iyo in badan oo aad garanayso aadan garanayno iyaguna ilaahay oofsaday. intee u malaynaysaa marka hadda muslimiinta hadda Gaza oo kale ee Falastiin 30,000 oo qof in ka badan baa ka dhimatay. yaryar iyo waaweyn baa isugu jira. in badan oo qofna aadan ka garanayn baa laga yaabaa dadkaa dhintay. kuwo badan oo aad garanaysana waa dhinteen, laakiin adiga waa nooshahay. aniguna waa noolahay oo aniga kula hadlaya. ilaahay wuxuu fursaddan inoo siiyey oo sanadka inoo soo gaadhsiiyey inaan ka faa'iidaysanno jaaniska, cimriga, caafimaadka, nolosha iyo diinta uu inoo ku deeqay. marka kuwii fahma oo garta oo wakhtigooda khayr ku buuxiya oo waxay mahdiyaan adduun iyo aakhiraba ku buuxiya, allah inaga dhigo. kuwa wakhtigooda xumaan iyo macaasi iyo cay iyo aflagaado iyo qurun iyo balwad iyo balaayo ku buuxiya, ilaahay nagama dhigo subxaanahu watacaala. isaga hanuunka iska leh. innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa.
adigu qofka aad jeceshahay ma hanuunin kartid, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u xanuuniya. marka alla inuu na hanuuniyo oo na hagaajiyo oo na toosiyo baynu ilaahay baryaynaa. bishan ramadaan ducada aada u ogow iyo baryada ilaahay subxaanahu watacaala, khaasatan afuradu markay soo dhowdahay oo weli aan la adimin, ilaahay aada u bari, khayr adduuniya khayr aakhiro weydiiso, oo keligaa ducada ha isku koobine muslim meeluu joogaba ilaahay u bari, mid dhintiyo mid noolba. marka la afurana dadku afurada iyo cuntaday ku mashquulaan, xilligaana waa xilliga ducada la aqbalo, rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam. xilligaana markaad xabadda timirta ay biyaha ka bato, gaar u bax, meel fadhiiso, afkaaga furo, ilaahay bari inta salaada maqrib laga aqimayo. haddaad masaajid joogtid, haddaad guri ku tukanaysidna ilaa 10 daqiiqo qiyaas intaad qiyaastid, oo dumarkii guryaha ku tukanaya oo kale qiyaastaan, ilaahay bari. markaad ilaahay baryayso, ducadu aadaab bay leedahay, aadaabtana aada ugu baraarugsanow. oo aadaabtu waxa weeye inaad ilaahay ammaanto, ilaahay u mahad celiso, nabiga calayhi salaatu wasalaam ku sallido, kadib ilaahay barido oo dantaada iyo xaajadaada iyo baahidaada weydiisato. waalidkaa u ducayso, muslimiinta u ducayso. ducooyinka weli jaamicada ah, duco waxaa jirta erayo kooban, suubanuhu ina baray calayhi salaatu wasalaam, oo haddana faa'iido iyo murti iyo macno weyn xambaarsan. waxaa ka mid ah rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar. waxaa ka mid ah allaahuma yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik. iyo ducooyinka dee af soomaaliba ilaahay ku bari subxaanahu watacaala. hadhowna salliga nebiga ku khatin ducada markaad ducaysato ka bacdi. intaa bacdigeed allahuma salli calaa maxamed. ramadaanta goormaa la farad yeelay? ramadaanta waxaa la farad yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu yimi magaalada madiina, taariikhduna ahayd sanadkii 2 ee hijriga. rasuulka calayhi salaatu wasalaam 9 ramadaan buu soomay. 9 ramadaan ayuu soomay nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu madiine joogay. ramadaanta cibaado soo jireena weeye, cibaadadaasoo ilaahay addoomihiisa muslimiinta ee dunida soo maray iyo rusushii uu u diray iyo ambiyadii la socotayba ilaahay uu ku farad yeelay inay la yimaadaan. taa qur-aanka inoo sheegay. laakiin innagu haddaynu isweydiinno, sidee buu ahaa soonkii ummadihii inaga horreeyey? ma saacaday soomi jireen? ma maalin bay soomi jireen gelin hore? ma sideennoo kale 2 gelin hore iyo gelin dambe soomi jireen oo maqhribkay afuri jireen? ma bil bay soomi jireen? ma bil wax ka yar bay soomi jireen? ma bil wax ka badan bay soomi jireen? ilaahay baa garanaya. laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegay cibaadadan weyn ee soonka ee cadiimka ah inay cibaado cadiima oo soo jireena ay tahay. muslimku caanamaalay meeluu joogaba lana yimi. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam. kii mu'miniinta ahaayow, ilaahay wuxuu idinku faral yeelay soon. faral waajib uu dushiina soon kaga dhigay, kamaa kutiba cala aladiina min qablikum. sida ilaahay ugu farad yeelay si la mida kuwii idinka horreeyey. markaasaa ilaahay aayadda wuxuu ku gebagabeeyey xikmadda ugu weyn
ee uu soonta iyo cibaadadatan ilaahay uga jeedo oo la xaqiijinayo oo qofkan muslimka ay la rabo in uu guul weyn ka keeno. xikmaddaasi waa maxay? lacallakum tattaquun, alla inaad ka cabsataan. si aad ilaahay uga cabsataan ayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu idinku farad yeelay soom. soomku markaa waa alla ka cabsi. qofku waa cibaado sir ah oo adiga iyo ilaahay idin dhexaysa. cid kaloo ku og inaad sooman tahay ama kaa warhaysa ama ku arkaysaa ma jirto. cidda inaad soomantay ku ogi waa ilaahay subxaanahu wa tacaala. waa cibaado sir ah marka adiga iyo rabbigaa idin dhexaysa. cibaadadaas marka waxaa la rabaa inaad ku dadaashid sida ugu wanaagsan inaad u gudato. soomku marka shuruuduu leeyahay. shuruudaha uu leeyahay waa 6 shardi. arkaanna wuu leeyahay, waa arki doonaa. shuruudihiisa 6 haddaynu sheegno waxa weeye waa muslim, caaqil, baalig, مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خاليا من الموانع. وشنتاس مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خاليا من الموانع. والحدا قضب كو وإنه قفك سوما يا مسلم هرتيه. مسلم وإنه يهي أهل توحيد. لبو وإنه يهي قف عقل له. قف عقل له وإنه يهي وأن عقله سمقنين وده علمه يراه وكاله تسون لغا مرحبا. علمه يراه صون لغا مرحبا. kii waalnaaya waa shay walciyaadu billaah isagana soon lagama rabo. qofkii weynaaya asaasaqay ee gabow iyo da' weyninkeed daraaddeed caqligiisii tegey waxba aan kala garanaynin isagana soonku waajibkuma aha. qof laakiin caqligiisu tamaam yahay waa laga rabaa. qofka shardiga labaad. shardiga saddexaad baalig waa inuu qaangaadh yahay. muslim waa inuu yahay 1. 2 waa inuu caqli leeyahay. 3 waa inuu qaangaadh yahay. qaangaarku marka calaamaduu leeyahay. calaamadiisa waxaa ka mid a qofku inuu 15 jirsado. qof kastoo 15 sano gaaray waa qaangaadh. waxaa ka mid a calaamadaha qaangaadhnimada qofku inuu biyo duuliyo oo biyihii manida ahaa ay ka yimaadaan. qof kastoo biyahaas manida ka yimaadaan xitaa hadduu 15 sano ka yar yahay waa qaangaadh. 3 waa in qofku timaha hoose ee farjiga ama xubinka taranka hareerihiisa ka soo baxaa waa in timahaasi ay ka soo baxaan. oo haddii qofku calaamaddaa isku arko waa qaangaadh. dumarku waxay la dheer yihiin inta kale raggay kala mid yihiin 3 qodob ee hore. waxay la dheer yihiin dumarku caadada. haddii gabadhii dhiigga caadadu ka yimaadana 15 sano haba ka yaraato da'deeduye waa qaangaadh gabadhaasi. taa micnaheedu ma aha 4 calaamadood ee calaamadaha qaangaadhka la yidhaahdo in qofkuba 4 laga helo. ee micnaheeda waxaa weeye 4 mid ka mid a haddaad isku aragto qaangaadh baa tahay. soonkiina waa laga raba. inuu qofku muslim yahay 1 waa sheegnay. 2 waa inuu caqli leeyahay. 3 waa inuu qaangaar yahay. 4 waa inuu soonka awoodaa
qaadir awood waa inay jirtaa, waa inuu soonkii qofku awoodaa oo xag caafimaad inuu u awoodo, oo qofkii hadduu xanuunsanayo oo mariil yaho bukaan yahay, haddii soonkii waxa weeye lagama rabo xaaladda uu bukaanka yahay, waajibkuma aha. waa arki doonaa bukaanka iyo qaybihiisa duruusta kalean ku sheegi doonaa. waxaa dhici karta qofku in uu gaboobay oo da'diisu weyn tahay, laakiin aanu gaajadii iyo haraadkii iyo soonkii xamili karaynin, ma awoodi kara kaasina. marka waa inuu awoodi karaa soonkii, awood waa inay jirtaa. waa qodobka afraad. shardiga shanaad muqiim, waa inuu qofku yahay qof jooga gurigiisii, magaaladiisii iyo deegaankiisii, oo aanu qof sadcaalah ama musaafira ama socoto ah waa inaanu ahayn. hadduu musaafir yahay oo uu caafimaad qabo, ama dayuurad ha ku safro, ama gaari ha ku safro, ama markab iyo doonni ha ku safro, ruksad buu haystaa sharci ah inuu iska afuri karo. faman kaana minkum mariidan aw calىa safarin faciddatun min ayaamin ukhar. ilaahay wuxuu tilmaamay qofka safar hadduu ku jiro in maxaan ku idhaahdaa safarkaasi cudurdaar yahay oo rukso yahay, uu hadhow inuu soo qallayo qofkii laga rabo ama uu xanuunsanaya. shantaa shardi ee shuruudda soonku ku waajibaya ah, rag iyo dumarku way ku siman yihiin. aan ku celiyo shantii guud ahaan. waa inuu qofku 1 muslim yahay, 2 waa inuu caqli leeyahay, 3 waa inuu qaangaadh yahay, 4 waa inuu soonkii awoodaa, 5 waa inuu qofku musaafir aanu ahayn. shantaa qodob rag iyo dumarku waa ku siman yihiin. qofkii laga helo soon baa ku waajibaya. qodob 6 baa jira oo dumarka u khaas ah. waxaa laga yaabaa gabadhi iyadoo muslimad ah, hadda u fiirso, oo caqligeedu tamaam yahay, oo qaangaadh ah, oo soonkii awoodi karta, oo gurigeedii joogto aan musaafir ahayn, in haddana aanu soonku waajib ku ahayn baa dhici karta. sababtu maxay tahay? inay macduur tahay oo xaydkii ka yimid baa dhici karta. mar hadduu xaydkii ka yimaado, shuruudaha kale oo dhan hadday u dhammaystiran yihiin, soonkii waajibkuma aha xilliga ay caadadii xaydka wadato. shantaas oo rag iyo dumarku ku siman yahay, iyo taas 6aad oo gabdhuhu gaar la yihiin, 6daas way shuruudaha soonka: muslim, caaqil, baalig, qaadir, muqiim, khaali min almawaanic. shantaas iyo shardigaa kale 6daas weeyaan. soonka arkaantiisu waa 2 ama waa 3 haddii la badiyo. rukniga koowaad waa anniya, waa inuu qofku niyeysto. rasuulku wuxuu tilmaamay sal allahu alay wasalam, qofka aan niyad soon habeenkii ku seexan, man lam yubayit isiyaam falaa siyaama lahu, oo kama qaala sal alla alay wasalam. inaanu soon u jirin, soon inaanu u jirin. waa niyo 2. qodobka labaad alimsaak min طuluuci اlfajri الsaadiq ilaa guruubi الshams, inuu qofku afkiisa haysto. afhaysashadu waa 2 qaybood: afhaysasho xaqiiqi ah iyo mid macnawi ah. mid xaqiiqi ahoo wax la cuno iyo wax la cabo iyo cuntada uu la isticmaalo oo dee la arkayo oo uu qofku ka afhaysto, iyo mid macnawi ahoo waxa la wixii kale xumaan iyo macaasi ah ee soonka jebin kara inuu ka afhaysto qofku. dhammaan wixii soonka jebin kara
inuu qofku ka afhaysto laga bilaabo salaada subax markay soo gasho oo fajarka labaad ee lagu tukado salaada subax uu dhasho ilaa inta qoraxdu ka dhacayso. maalintaas waageedu beriyey ilaa inta qoraxdiisu ka dhacayso. waxaa ka mid a waxyaabaha arkaanta rasmiga la ilaalinayo uu qofku iska ilaalinayo islaamnimadiisa inuu ilaashado. hadday ridda timaado walciyaadu billaah uu diintiiba ka noqdo dee diintiibuuba ka noqday qofkii waa khalaas waaba gaaloobay. soon ma jiro dee waaba buri soonka oo dhammaatay. mar haddii ridda timi war ma noola khalaas soonkaasi dhimay waa tegey waxba kama noola. ama qofkii waaba waashayba isagoo soomanbu waasho caqligii baa tegey khalaas. iyaduna waxa weeyaan soonkiisii waa waxaysmaya. soontu sida dadka qaarkii ay moodeen ma aha arrintu. dadka qaar baa mooday soontu in ay tahay cuntada iyo cabitaanka oo laga soomo keliya. ma aha. waa ka mid cuntada iyo cabitaanka in laga soomo wax la cuno la cabo, laakiin waxaa la rabaa adigoo dhan inaad soontid. maxaan uga jeedaa adigoo dhan inaad soontid? waa in cuntadii iyo cabitaankii afkaagu ka soomaa. waa in aad indhahaagu soomaan, waa in dhegahaagu soomo, waa in gacmahaagu soomaan, waa in uu soomo lugahaagu soomaan, waa in wax kasta oo xun aad ka soontid. sidaa awgeed waa rasuulku sala allahu calayh waali wasalam xadiidka qudsiga ah ama xadiidka saxiixadeedii aad garanaysaanba: man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bih falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu. qofka aan ka tegin hadalka xun ee dembiga ah iyo inuu ku dhaqmo la yimaado camal xun oo dembi ah, wax dana ilaahay kama leh, muraad kama leh ilaahay cuntadiisa iyo cabitaankiisa ka tegiddaa uu ka tegey. yacni ilaahaygi subxaanahu wa tacaala muraad kama leh. qofkan cunto iyo cabid keliyaan ka soomay, laakiin wax xun baan ku hadlaya, wax xun baan ku dhaqmaya, wax xun baan samaynaya, wax xun baan daawanaya, wax xun baan dhegaysanaya, wax xun baan ku sheekaynaya, wax xun baan ka shaqaynaya, wax xun baan wadwadaa. laa, waxba ilaahay muraad kama leh. marka cuntada iyo cabitaanka soonkaaga aad leedahay waxba ilaahay muraad kama leh subxaanahu wa tacaala. xadiid kale wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu tilmaamay: ruba saa'im, badanaa mid sooman buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam, falaysa lahu min sawmihi ila aljuucu waalcatash, oo kama qaala calayh isalaatu wasalaam. badanaa mid sooman oo soontiisu gaajo iyo haraad mooye wax kale uu ka faa'iidaya aanay jirin. gaajo iyo haraad mooyaane wax kale uu ka faa'iidayaa aanay jirin. badanaa buu rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. xadiid alqudsigii kale wuxuu ahaa: yadacu طacaamahu wa sharaabahu liajli. qofkani wuxuu cuntadiisii yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu, waa sidaa, wuxuu cuntadiisii qofkan uga tegey sooman iyo cabitaankiisii iyo waxay naftiisu rabtay oo dhan aniga dartay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. aniga dartay buu uga tegey. marka waxaa la doonayaa sida aad cuntada ilaahay dartii iyo cabitaanka uga tagtay, wax alla wixii kale oo xunna ilaahay dartii uga tag. dadka qaar baa filimaan musalsal ah oo la soo daayo daawada rabadaanta, waxay ku leeyihin waxaan daawanaynaa musalsal. qaarkood filimaan ay kuwa fanaaniin ah jileen oo
oo saxaabaan ka matalayna ay leeyihiin oo shayaatiin oo faasiqiin oo qaarkood gaala yihiin waxay jileen oo filimaan ahoo saxaabadii baan ka matalayna ay leeyihiin dadka qaar wax wanaagsan oo diina moodaya oo daawanaya. dadka qaar baa musalsalaad daawanaya oo rabadaanta ka hor tiifiyada iyo barnaamijyadu soo gudbiyaan oo yidhaahdaan musalsalkaasaanu idiin diyaarinay si aad ugu maaweelootaan ama ugu madadaalataan oo wakhtiga isu dhaafisaan. bisha ramadaan baanu idiin soo wadnaayo saasay yidhaahdaan. waa ayaan darro kuwa ku baaqaya. bal nin ayaan darro ku baaqaya haddaad weelashaada u dhigato ka buuxsato soo ayaan darro kale maaha. dadka qaar baa filimaan daawada, qaar baa riwaayada daawada, qaar baa wakhtigiisa ku dhammeeya tiktok iyo facebook maantoo dhan inuu wax lasoo dhiga daawanayo ama wax dhigayo aan wanaagsanayn ama wax xun ka daawanayo. maantoo dhan waxaasu ku jira. qaar baa turub ciyaara, qaar baa laadhuu ciyaara. rabadaantaad arkaysaa dad karaatoon iyo safiitooyin intay soo qaataan xarxariiqaya oo qaabkii laadhuuda loogu ciyaari jiray u diyaarsanaya oo rag iyo dumar bahashaas ay ciyaarayaan baad arkaysaa. qaar baa geem ciyaaraya oo moobilkiisa geem ka ciyaaraya, wakhtigiiba maanta oo dhan geemkaasu baacinaya garaacaya ku jira. marka qofku waa inaad sidaad cuntada iyo cabbitaanka ilaahay dartii uga tagtay wax kasta oo xun ilaahay dartii uga tag oo naftaadu ay rabtay go-aan ka qaado. soo cunnadii adoo cabbi karo cuni kara go-aan kamaadan qaadan. soonkaaga ilaasho. bisha inaad dhammaysan doonto ilaahay baa garanaya. ma 10ka horaad dhiman doontaa, ma 10ka dhexe, ma 10ka dambe, ciidka ma gaari doontaa, ma dhammaysan doontaa, ilaahay baa garanaya. maalinta aad nooshahay weeye maalintaadu. wakhtigaagu waa wakhtigaad haysato. marka ka faa'iidayso. ilaahay baa og meel laguu soo jiro wakhtigaaga. ka faa'iidayso marka soonta soo socota inaad gaari doonto iyo in kale ilaahay baa og. tanaad maanta joogta ilaahay ku keenay. ilaahu adaa isoo gaarsiiya, alxamdu alshukru. ilaahu adaa mahaddaa iskale intaad tidhaahdid 4 adin iyo ilkaha ku qabo. qur-aan akhrintii, taraawiix, duco, salaad, artaa ku dadaal. inahaasaan darsiga maanta qaybta koowaad ku soo koobaya. wixii aynu asiibnay ilaahay baa mahaddaa iskale subxaanahu watacaala. isagaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo, naga abaaliyo, inuu waliyu daalik walqaadiru calayh. wixii aan gefnayna ilaahay naga dhaafo. isagaa ilaahay aan gefin, isagaa cilmi badan. inuu ilaahay naga dhaafo baan ilaahay weydiisanaynaa. inuu ilaahay kelmadda miisaanka xasanaadka noo saaro. aniga odhanaya idinka maqlaya arkayaba ilaahay inuu ku anfaco baan ilaahay weydiisanayaa. maalin adduunkana nagu anfaco, maalintan baahi weyn qabna ee hor joognana ee la qaaqaawan yahay, ee la kabala' yahay, ee la dhar la' yahayna ilaahay nagu badbaadiyo, miisaanka xasanaadka noogu cusleeyo baan weydiisanaynaa. waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله وحبيبه ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.